waa mahadsantihiin dhammaantiin Universal inaad wax naga weydiisaan waa idinkaga mahadcelinayna arinta gurmad qaran waxay dhalatay maalintii dibka uu bilowday 14 Oktoobar xasuuqi baana lagu geystay shacabka Soomaaliyeed wadada Ekesob 14 Oktoobar hadda loo bixiyay maalintaas markii dibka dhacay saacado kadib waxaan go'aansanay inaan wixii dhalinyaro ahaa kamid ahaa asxaabteena iyo dadka urada dhalinyarada u dhaqaaqa inaan dhaqaatiirtaha inaan isbitaalada u dirno habeenkii waxaan daldalaynay dhalinyarada dhiiga bixinaysay kadib waxaan go'aansanay in subaxii intaan isu imaano si hooshii wixii aan qaban karno asaageena aan qabano marka waxaan isku daynay inaan wadooyinka marno wadooyinka waxa la waayay dhiigii ee balaasko kalanta la wada wax balaaso dhan waa la waayay isbitaalada informationada aan ka heleynay waa dhaqaaqnay marooyina madaxa ku wada xiranay wadooyinka marna anaga ku qaylinay dhiiga la shubo oo waliba A+ O+ iyo B+ inta hala shubo dhalinyaro badan aan soo raacday jaamacadaha nooga yimaadeen meesha isbitaalada marka aan tagnay waxaan ku tagnay almost 300 iyo abaf dhalinyaro meel aan kala istaagnaan weyne dhiigi malaha dhiig meel lagu kaydiyo kadib dhalinyarada qaar dhiig ay shubeen qaarna way awoodi kari waayeen ma jirto meel lagu kaydiyo isbitaalada waxay dhaheen ma awoodi karno inaan dhiig intaan la inta shubno aan hadana kaydino marka sida loo soo noqonay markaan soo noqonay kadib waxaan go'aansanay bal wixii kale inta aan sameyn karno asaageena oo aan awoodi kareeno waa isu imaanay waxaan door bidnay markii hore aan bilaabayna waxaan ahayn 4 iyo 5 qof aan ahayn kadib waxaan noqonay 10 20 40 goobta markaan tagaynay gurmad qaran nala siiyay hargaha saamaha waxaan ahayn 40 dhalinyaro kadib waxaan go'aansanay bal maxaan sameyn kareena oo awoodeena ah oo qaban karna waxaan isu qaybinay bal 4 qaybood isu qaybinay si aan dadkii emergency-gi uga jawaab celino umada Soomaaliyeedna u garab istaagno dhiiga walaalaheena qubtayna aan runtii aad uga danqano marka 4 qaybood isu qaybinay waxay ahayd qayb IT oo daatada noo aruurisa social media adduunyada la wadaagta warbixinada qayb caafimaadka ah oo isbitaaladii iyo dhibaatadii dhacday iyo dhaawacyada sidii u kala daran yihiin soo report gareysa ee noo keenta qayb kale logistic ah ee faafisa geysa raashinka iyo biyaha iyo wixii loo baahan yahay isbitaalada geysa qayb kale oo farac ka faracmay IT-do kaleente qaybta technician-ka ka faracday oo confolis waxaan sameynay telefono furan oo yurmud ay naga caawisay telefonadii marka waa la furay ilaa 12 telefon idaacadihii localka ayaan u sheegnay si dadka ay u soo wacaan eheladooda ay la'aayeen waxa kaleento jiray group coordination group la dhaho isku xiray groupada dhan oo aniga aan qayb ka ahaa aniga iyo 2 gabdhood kaleente mandeeq xaaji cilmi iyo Faadimo Cabdi Cali saddexdeena waxaan ahayn dadkii isku xirayay gruubyada iyo dawladda iyo dadka officialska noo imaanayay iyo dadkii masiibada ee qabatay ku dhacday marka saas uu ku bilowday ugu dambeyntiina waad garanaysaa xijmiga iyo weyniga iyo diirada ay yeelatay in dhalinyarada adduunka gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay istaagtay in dadkan loo gurmado marka isla saacadii marka meesha fariisano waxaan helnay inaan magacaan qaadan karno qoto gurmad qaran inaan dhalinyaro is abaabulay cid abaabusho aysan jirin magacaas gurmad qaran ay noqonayso magac mug weyn u sameynayso ummadda Soomaaliyeed looguna adeegayo marka dhalinyaro diiran iyagu is diray cidna aan dirinay ahayn ayaan la waata muna markii dhalinyaradaasi si rasmi ah loo magacaabay waxyaabay ugu horeeyay oo inoo sheegto waxa kamid ah dhiig shubista sidoo kale waxa lagu guuleystay dhaawacyadii qaar in dalka dibadiisa loo qaaday kadib haddana waxa bilaabatay in deeqal cagad la ururiyo oo la gaarsiiyay isbitaalada sidoo kale la gaarsiiyay dadkii wax ku noqday taabal idan warbixin naga sii waa jirtaa dhalinyaradu waxay ku guuleysatay in qayladhaantii la qayladhaamiyay wasaaradda caafimaadka wasiiradeeda iyo xafiiska prime minister ka xafiiska madaxweynaha iyo wasiirro qaar oo yaryar oo wasiirka xanaanada xoolaha oo kamid yahay Sheekh Nuur xildhibaano yaryar ay noo yimaadeen nala shaqeeyaan gobolka Banaadir gudoomiyaha Taabid oo aad loobi kareyn runtii door mugle ka qaatay kadib markii dhaawacyadii aan qaadnay waxaan hawshii sidii u sii socotay bal qaabka kale inta aan wax ku qaban karno waxaan abaabulnay bal in la sameeyo guddi isku dhafa civil society bulshada rayidka
culimo owdiinka dhallinyaradeeni qayb ka mid ah ay ku jiraan si dadkii deeqihii soo gaaraan loola socodsiiyo ummadda kale si saxanna loo gaarsiiyo saraaxa dhalinyaradu qayb ay ka yihiin dokumentiyada ay qorayaan waxay og yihiin dadka siday u kala baahi badan yihiin oo u kala dhiban yihiin dadka dhibaatada ay gaar dadka waa wada victim waa wada dhibanaya haddana sida ay u kala badan yihiin qof hal canug haysto qof 9 canug haysto waa ka dhib badan yahay marka in dhalinyaradu ay hubsadaan numberka dadka ee la siin karo oo loo falcelin karo gacan la gaarsiin karo iyo dadka aan la gaarsiin karin marka dhalinyaradu wali qaybtaas way socotaa oo hawshii deeqda ururinta way socotaa numberka ugu horeeyay daraadan gaarsiinay 15 hooyooyina caruur wato asay saaran tahay telefoonadooda laga wacay sida u kala darnaayeen maalinta ka dambayso loogu yeeraya hawsha oo deeqda iyo aruurinta deeqda way socotaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay u gargaara walaalihiin si ilaahay idinkugu naxariisto oo ummadan dhibaatada looga saaro diiwaanka aad haysaan dadka aad u kala daran dhibaatooyinka inta ay u gaarsiisan yahay walaahi random waxaan sameeynay qofkii oo isku dhafaynay sida loo kala badan yahay dadka aad u wada dhibaataysan yihiin dadka numberka 80% kaysaska aan hayno oo dadka laga dhinta ah waxa ka dhintay qofka hormuudku ahaa ee noloshaas ee qofkaas ay ku tiirsaneed iyo ka dhintay marka waad ogtahay Soomaalida inteeda badan dadka babarto iska faqiir waaye oo dhibaatooyinkii badnaa ee wadanka ay la dageen xoogooda maalin jiray qaar cadayagadi jiray qaar biyo meesha ku wareejin jiray oo la socotay xaaladda isgoyska sida ay ahayd qaar gaas meesha ku gadan jiray qaar kaleento dadka ugu roran waa dadka dukaamanka carwooyinka meesha ku lahaa ugu roran laakiin dadka intooda badan waxa marayna kama liidan kama fiicnayn wax bay la saarnaaya u badnaa marka dadku ma isbaahiyadooda isla wada egyihiin intooda badan isla egyihiin laakiin haddana waxaan fiirinaynay numberka aan isdhihi karno sidee yihiin waa number 80% ah waata munay waxa hadda bilaabatay ururinta deeqahaasi ee guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin waxay bilaabeen in ay gurmad deeq lacag iska soo ururiyaan hadii dalka ay joogan hadii dibadda ay joogaan dad badan waxa ay isweydiinayaan gudigii abaaraha la magacaabay lacag badan ay hore u ururiyeen ilaa haddana dadku waxay isweydiin lacagihii maxaa lagu qabtay idinkana sidoo kale gudiga gurmadkiina qaran waxa bilowday in ay ururisaan lacago bal ka waran farqiga idin dhaxeen doona والله أنا هرتا توي كدوان تهاي وحاجة دوان تهاي قفل بهرتا إله بحسابين كرايا جودي كان سوى حان أصميني إن قيمها برشة لأن ضد لو كل شيء هاي وعلماء له وهو يوين له وأنا نوبهنين دخل قف مسكينة لوسو جود بيه أنا نوبهنين لأن يرد نفتر كذا لبعض اللي يرى قدر سنة لبعض اللي يرى إسكوف فلان وحبرتي شقيسته waxa ay ugu shaqeystaan cunawaay marka waxaan aaminsanahay si inaysan noqon doonin wax far lagu fiiqay noqon doonto wax transparent ah cadaalad ku dheehan tahay cadcadaana xisaabaad cad haddaba wixii aan helno rasiidkiina soo gaaro account lagu soo rido rasiidka isla saacadii waxaan gelinaa page-keena gelinaa website-keena gelinaa si dadka ay ula socdaan bal waxana soo gaaray cadadeeda intay la egyihiin waxaan aad uga baqi jiray uga cabsan jiray in dhalinyaro la yiraahdo gudiga loo sameeyo marka dhalinyarada waxaan islahaa ama dib idinkaga soo gaara aad uga dhiifooneen arintaas hadda ilaaha ku mahadsan in culimo ay nagu jirto ilaaha ku mahadsan in hooyooyinka civil society-ga ay nagu jiraan in odayaal rugcadaa ee wadankan wax badan u qabtay aan maal ka rabin cilmi iyo aqoon iyo maalba geliyay ay ku jiraan gudiga marka waa ka duwanaan doontaa farqo fiiqdii hore isma ahaan doonto ugu dambeyn marka maxaa ku talinaysa oo soo gabagabeynaysa wama City University taladeedu iska cadahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba aad joogtiin isu gargaara ilaahay wuxuu yiri dhulka isaga naxariista samadan idinkaga naxariisanaya ummadiina ummad daalan waay ummad dhibaatoon waay imid aad u dhib u helay waay masiibadana haysata ma yara shala ugu dambeysay in Amazon ay dhibaato gaarsiisay dad rayda waana arin aad aan ugu xunnahay annaga hadaan nahay gurmad qaran dhalinyaradeedii isxilqaantay dadkeenan u taaganahay mana ogolaan kareeno in dadkeena maalin walba la xasuuqo dhalinyarada Soomaaliyeed aan la hadlayaa waa dareemi karaysaan culayska ina saaran dalka inaanan cidna u maqnan ceelna u qodnayn mar walibana waa idin sheegaya dalkan inaga iskale inaan aaminana waa muhiim dalkan inaan inaga leenahay inaan samata bixin karno marka University TV iyo daawadayaasha waxaan leeyahay waa maasantii